marka waxaad arkaysaa wadaadada badhkood oo waxay leeyihiin masaa'ishaasi waa khilaafi ha noqotee macnaha fuqaad way isku khilaafsan ibnu taymiya meel maray tusaale ahaan waa masalada waxay sujuudu tilaawada iyo sujuudu shukrigu dahaare iyo wada satru awriya sida salaadii ma loo ictibaarin mise looma ictibaarnay shuruudii salaada adoo futagami u sii jeeda iyo adoo qaawama waa iska sujuudi kartaa fiiri masaladaas a'immatul madahib kolkay tirinayaan masaa'isha a'immatul madahib arba'at ibn taymiya kala kaliyoobay markay tirinayaan qaarkood bal ajzaaba laga alifay mufradaadkii bay kamid ahayd marka waxa arkay wadaad Soomaali oo soo qaadanaya oo leh sujuudda kaligeeda ma xukunka iyo shuruudii salaada bay u baahan tahay mise uma baahna oo tahaaradii awradii la asturaahayda qiblada loo jeedsadaahayda mu baahan mise uma baahna الصحيح دليل ahaan marka la eego wana jamhuur ahli ilmi u badan yihiin sujuud ahkaamtii salaada malaha mal waxa loo fiirin hayaa yaani shuruudii salaada oo kale oo sujuudu shukri ama sujuudu tilaawa hadaad la imanayso oo waa inaad dahaaro qabto oo waa inaad qiblada xageeda u sii jeedsato oo waa inaad wada marka cawradu asturan tahay miya loo fiirin waa say jumhuur ulama qabeen oo aymatul madahib arba'ati ay qabeen oo sida ahwadka dadaalka badan oo nabadgelyada ku jirta ahayd misama aha adad qaawantahay adad qalbeed u sii jeedsatay meelka u jeedsatay waa iska sujuudi kartaa sida ibn taymiya qabay mufradaadkiisa laga dhigahay markaas wuxuu yiri fuqaad way isku khilaafsan yihiin asahul qawlayni ina loo shardinayna way yiri ibn taymiya qowlkiisa dhafiir hada culimada kala dhan intuu afduubay oo saaya wuxuu yiri qowlka asaxi waa ina la ictibaarnayn ibn taymiya kaliya qowl asaxa ka dhigo wad culimada kala dhanna qowlkoodii wax daciif aan jirin bal cibaaradu adeegsanaa fiiri bulshadana uma baraarugsan mugta markaas asahul qawlayni labada qowl kan asaxsan waxa way ina la ictibaarnayn mana cadeynaya umada kala qabtay iyo sida khilaafku miisaanku uu leeyahay ma cadeynayo marka arimaha noocaas oo kala ah waa laga fiican yahay in arinta sideeda intii loo saafo kolka adeetan dhinka la rajaxaya waxa loo rajaxay in kolka loo cadeeyo bulshadu ay ku macaan tahay ee masalada rabtay kaliya una iska tiraahid waa saxiix waan arkay ayuu laftooda wadaad saas oo kala ah oo qowl baad waliba shaada oo hal sheekh amal ay ka soo xigan hayaan ay leeyihiin wa huwa madhabu saxiix ayaga saxiix yeelaya ogow ma cuskan hayaan baad marka meel kale naqli kale midna ma ogow hadeed ay marka meelahaas oo kale waxoogaa waa laga roon yahay baad marka in culimada ama diinta la afduubo ma fiicana